ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka kumaandooska ee Gorgor ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ay ku burburiyeen fariisimo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ay ciidamada howlgalka ka fuliyeen waxaa ka mid ah deegaanka Gambaarey Dawacaale Buuraha Shaamgarre Buurdaash Daanyerey Jowharyerey iyo geediyaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha ciidanka kumaandooska ee Gorgor oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidanka hadafkoodu uu yahay xoreynta deegaanada cadowga ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka kumaandooska Gorgor ayaa howlgalka ku burburiyay fariisimo cadowga Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi ay howlgalka ka sameeyeen saraakiisha ciidanka kumaandooska ee Gorgor ayaa sidoo kale la kulmay ciidanka Amisom oo qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee jooga gobolka Shabeellaha Hoose bulshada ku nool deegaanada howlgalka laga sameeyay ayaa aad u soo dhaweeyay ciidamada kumaandooska ee Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo dareemay naxariista dawladnimada kadib markii saraakiisha ciidamada hogaaminaysay ay xog wareysi la yeesheen bulshada deegaanadaasi ku dhaqan